بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Soomaaliyeed meel walba joogto salaamaya. waxa waaye horta mar walba waxa isdhahaa barnaamijyadan hadalka waxa waaye adigu barnaamijkaaga talantigaaga waxa waaye fan iyo hees oo intaa ku eko wax soo hadlin laakiin waxyaabo badan oo waxa jiro aad maxaan kugu qasbay inaad soo hadashid oo kugu kalifaayo waxa waaye wixii ay dadku u jeedaan oo muuqdo ay arkaan oo ayagu maxaa la yiraahdaa fasirnaa waa gooni laakiin waxa hoose oo anaga shakhsi aan dhalinyarana heesto cid la socota barahan ama og ama ka fanaaniin xaqiiqda markii laga hadlayo fanaaniinta Soomaaliyeed waliba kuwa dalka ku sugan oo dalka joogo waxa waa intooda badan gumeysiga macnaha qaab darbiga ku jiraan ha noqdaan qaar fiidiyoyo laga haayo kuwa ma aragtay qolobta ka jirno oo maxaa la telefoon ugu gumeysto kuwa dad loo soo adeegsado ma aragtay oo dad ma aragtay Soomaaliya dadka joogana waxa waa xaqiiqda markii laga hadlo $20 qofka dad soo dhiibtay ku soo adeegsato qofkaas aadadid dad ay ka soo roodaa jiro oo ku soo aadayo waxa waa muhiimada aan rabay inaan ka hadlo waxay tahay horta barnaamijkeena oo socday oo bilow ilaa dhamaad oo waxa waaye YouTube ku saabsanaa YouTube-kii gacan inuu galo YouTube-kii inuu isoo noqdo inaan raali gelin soo bixiyo inaan hadana wax ka soo jafo waxa soo dhan xaqiiq dhab oo guud ahaan hadana naga mahaayo waxa dhabtoo hadda taagan markii laga soo tago qadartii dhacday iyo maxaa la yiraahdaa tacsidii oo nagashay iyo xabsigii markii laga soo tago waxa waaye horta ninaan qalad nagu soo maagay anaga oo qaladka markuu nagu soo maagay maxaa la yiraahdaa anoo iska joogo Djibouti aqoonna aan u lahayn waxbana aysan naga dhaxeelin oo waxaan arkay nin iga soo hadlayo aniga maxaa la yiraahdaa oo bilaa macna dara been u jeedo oo cad ka hadlayo ninka waa marmar waa arki jiray maxaa la yiraahdaa laakiin kuma xirneen aniga nin oo social media ku jiro oo yahay qabyaalada iyo siyaasadda ka hadlay waxyaabo noocaas inuu yahay arki jiray marka arrimo iga waaweynayeen waxa soo meelay jiray kulay dawlad iyo wax is afansan yihiin iyo waxyaabo dad isqabteen inuu ka hadli jiray waxa soo meelay jiray laakiin kama dambeys waxa ogaadeen in iska madadac ah oo iska hadlo oo siyaasad xataa aan waxba ka aqoonin dawlad aan waxba ka aqoonin qabiil aan waxba ka aqoonin because ilaa hadda qabiilku uu yahay iyo qolada uu yahay ama aqoon u maleeyay mana maleenayo dadku uu sheeganayo inuu ka dhashay because qofka waxa waaye dadku uu sheeganayo dad wax cisto oo dad macnaha maxaa la yiraahdaa qabiil Soomaalida kamid ah oo la yaqaano oo magac ku leh oo dad ka dhashay oo siyaasiyiin leh oo dhalinyaro leh oo fanaaniin leh oo wax walba leh waayo oo waxa way qofkan haduu qaldan yahay qabsan karo laakiin aniga hadda waxa aaminsanahay shakhsigaas asiga ah waa magaciisa qaadin oo Soomaaliya oo dhan ay wada ogtahay YouTube-ka hadda kor gacanta u gali jiray waxa way in uusan qolaba lahayn qof qol cid oo ka dhashay ama looga dacwado uusan lahayn xaqiiqda markii aan ka hadlaayo horta aniga cid aan ka baqaayo ilaahay ma jirto maxaa waa daraadno waxa igu kalifay in aan aniga inta soo fariisto oo aan live inta soo galo YouTube aan soo dhaw maxaa la yiraahdaa apa social media tahay maxaa la waa ka baqaaya kana waa ka saaraya waxa waa aniga waxa soo wacay nin dhalinyaro ah oo YouTube-kiga hayo oo walaalkay adeer darajo oo Kenya degan oo meeshaas joogo waxa waaye oo dad is aamin aan ahayn YouTube-kiga asoo 8 ku maraya u dhiibay adeer darajo oo aan waxba ahayn waxna aan ka jirin waxa way gacantu ku soo qabtay copyright igu sameeyay waxa waa ku tatay waxyaabo badan igu sameeyay YouTube-kiga waxa way heesaygu ii xiri jiray waxa way account igu xiray YouTube-kiga lacag inaan ka sameeyay heer ah oo i gaarsiiyay wax walbo si walaalnimo iyo kalsooni ay nooga dhaxayso oo isla marnay waxa waaye qof aaminay aan nafteeda aan ku aaminay waxa wixii uu soo diri jiray wax walba uu sameyn jiray okay ninkaas aniga saaxiibkayga maanta hadii uu gacan uu galo ama gacan bil aadan ama qof uu gacanta ku dhigo waa ku qasbanahay in YouTube muhiim ma ahan naftiisa ay muhiim ah Soomaali Maxamed ha ogaato ama ka dhaadhacdo aniga ku adkaysi waan ku adkaysan karay ninkaas markaan lahaa 48 saac wada kaaga saaray markuu ilaaha aan lahaa wax aan xaniyahaaga fuul waxa iga qaadi kartid malahan anoo Muqdisho dhax joogo oo aan cidna ka baqaynin oo aan isdheyn qabiil aan aaminsaneen oo kan yahay idaarood iyo fikir ka dhaay qabiil iyo inta ku jirta waxaas igu jirin xaniyahayga nimadeeda anoo kalsooni kale aan deeyay cidna aan deeyay ama cidaas ka dhicinaysa igu jirin ama qofna u soo marin rabina nimadeeda xaniyahayga ku hadlay inuu soo waxba iga qaadi karna ogaa because fanaaniinta Muqdisho boqolkiiba 99 gacanta ugu jiraan nooca gacanta ugu jirna aniga ma ahaan ma fahamtay oo ugu soo qaldamay Djibouti ka soo bilaabo iga soo daba dhigtay waan ka aamusay shibanka ere waxyaabo badan oo ka hadlay Djibouti jooga gaaja ku dishay kan oo ka hadlay waxyaabahaas oo kasoo waa ka aamusay ilaahay Muqdisho imaaday waxa waaye wuxuu ilaahay farmaajo iyo maxaa uga soo hadashay
arrintii haddana shabaa ka eray wuxuu yiri show kama qayb geli kartid macnaa salka ii saare wax igu kalifay marka anoo aan ninka aan u naageenin aan ka baqin oo aan video u igaynin oo waxban igu sameeyeen wax igu kalifay inaan dhaho aniga habeenada kamid ah anoo garow jooga wax soo wacay deeq darajo soo wacay wuxuu igu yiri ninaaga shit wuxuu ugu yiri ninaa bas koolay waa ilaa waxa soo wacday gabadh maskiin ah waxay u tiri gacan ugu jirnaa ninkaas gacan ugu jirnaa adiga dartaada noo haystaa bas aniga awoodeedu waxay noqotay ninkii inaan waco aan dhaqorniyo aniga adiga naga dhaxaysaa dagaalkan waxaan maxaa ku haysataa dhalinyaradaas oo waxa waay wuxuu u adeegsaday nin laga baqo oo rasiid nuur loo markii aan ka daba tagay aan dhahay war ka baqin waxba idinku ma sameey karo waxa la itaha Axmed Rasiid aan dhahay waxa la itusay video ninkaas oo dad dilaayo oo dhalinyaro Soomaaliyeed dilaayo laamiga dhexdiisa ku dilaayo videogaas markii arkay ninka saaxiibkayga waa u baqaanay بس نيكي مركا ويري لايف سوغل واي بري فهد وابري نيكي مركا بري وحاواي waxa la isheegay ninka saaxiibkayga aha in la sii daayo yaqdar jibrka la sii daayo waxa ku yiri saaxiib ka soo tag meeshaas waxa waaye imaw jimirkayga ninkii gacantiisa soo gale inta imaw ku ere waxa waa deeq darajo ka soo tagay ilaahay deeq darajo familkiisa meeshii iyo gurigiisa iyo wixiisa iyo noloshiisa oo ka soo carro oo anigu xabsi ku jiro oo garowe ila imaado waxa Soomaali wax ma fahansanin deeq darajo ku qayaani waxyaabo noocaas ka hadlaya marka hadda waxay taagantaa waxay ugu kalifay inaan soo hadlo waxa waa ninkii maxal yiraani hadii YouTube-kii basweerkii wixii oo dhan gacanta ku haystaa inta ka baqay ma laha gacanteedana igu jiraan waxa waaye maanta kalsooni iyo khibrad aan u leeyahay Soomaali ugu aamintay aan YouTube la soo fariistay qofna ma bari jirin xaniyi igu jiray Soomaali isku barin waliba igu jiraa waxa waaye daciif waaye nin rag ma ah meelaha hoos ka soo hadla meelo hadeertan wax ugu kalifaa waxay tahay codkii dad waxaa jiro oo dad waaweyn oo arrinkiina ogaadaan rabaan dad asxaabta kamid ah oo codad aan markii ana ka qabanayno iyo ana la wadaag ana diray waxa waa dad u diray waxa waa inay ogaadaan ada codadkii la soo dhigay YouTube marka message ani ninkaas aniga YouTube-kayga iguma soo celinaysiis ay siinay YouTube-kayga xaniyi marka hore la iga qaada la igu soo celiyay habeenada kamid ah anoo deeq isla jooga deeqo telefoon ku hadlaaya arkay oo ninkaas Axmed Rasiid Allah ka hadlay oo Axmed Rasiid ka telefoonka ka qaadnay deeqo waxaan ku iray saaxiib adaanikaas ninka la yiraahdo Axmed Rasiid u galiyay gacanta YouTube-kayga waxa waay hadeertaan adaanikaas saas waxa la yiraahdo iiga heelay waxna igama qaadi lahayn YouTube cusubaan aniga hadda sameystay YouTube kaasna waxa waay uma baahni laakiin xaqiiqada jirto waa ka soo hadlaya baa ku yiri asoo siraftiisa dhoorayo oo ka baqaayo Soomaali Maxamed siraftiisa uga baqaayo Axmed Rasiid oo YouTube-kayga ii soo celi intuu wacay anoo aan la baryo tamin aan wicin oo soo galay qadka ninka la yiraahdo heblaay hebelka caliso markuu soo galay wuxuu yiri iyo kuugu wareejiya sidii YouTube-kayga ugu wareejistay maxaa la yiraahdaa oo aan deeq darajo basweerkii wixii hadda ii bedelay bas marka si walaalnimo oo iiga codsado yiri maxaa la yiraahdaa ii soo gal YouTube waa ku bariya ii sheeg bas ina YouTube-ka kuugu wareejinay aan bas aniga sheekada meesha ku ekaatay wax walba aan islaha sidii aan dhacday bas hadeertaan ala kulli xal muhiimada soo fariisa waxay tahay waan inuu tusiyaa baqashada lambarkiisana waa taqaanaan wuxuu soo diray waxa waaye xayaat ka jiro wacaya wuxuu leeyahay waxyaabo oo maxaa la yiraahdaa waa ku qaabinaya video waa ka duubaya kan uu duubaya meelaha hoose ee meesha ninka rag laga marin oo naga soo maraya ma fahanti Soomaali Maxamed waxa uu sheegaya aniga horta cid aan ka baqaay ma laha YouTube-ka maanta haduu hawada ka baxo فكيو يوتيوب waxa uga baanay malahan waxa waan noolahay dad baa ka dhashay Soomaali Maxamed aan ka dhashay 20 jir ahay mar walba jaanis ah haysta aniga laakiin waxa inii sheegaya dhalinyarada Soomaaliyeed waliba fanka dhalinyarada fanaaniinta in ay gumeesi ku jiraan intooda badan gumeesi idinku waxay idin soo gudbiyaan farxada idin la wadaagaan heesa idin soo gudbiyaan laakiin xaqiiqada marka idin kala hadlo dhalinyarada gumeesi intooda badan ku jiraan waa loo caag jugleeyaa qaarkood video waa laga haayaa qaarkood wax walba lagu sameeyaa qaarkood dad loo adeegsadaa raga loo adeegsadaa
ninkiina ilaa ay hadeertaan waxaa dadku daba taagan yihiin ee sheegaan waxay tahay muxuu idin daba taagan yahay sharma muxuu uga soo hadlay dadku waxay isleeyihiin hadeer shar sheekadan weeb aamustee muxuu sharma iyo haddana uga soo hadlay waxaa waaye wax uga soo hadlay dadku kala feeso naagu dhalay weli cagto noo saaraya waxaa waaye haddana annaga nama soo aadi karo oo nimadiisa annaga naguma soo aadayo nooguma caga jugleenayo meelo hoose iyo gabdhihii iyo xaafadihii iyo familkii nagala maraaya dagaalo daciifeed cidiya hoosteedu nagala diraaya waxaan idin sheegaa aniga hadeertaan deeq darajo walaalkayga waa isla joognaa waxaa waaye ilaa iyo meel maxaa waaye ilaa iyo familkiis u baqaan heerkaasuu maraaya oo la yiraahdaa maxaa la yiraahdaa intaa loo idin diraaya oo aniga xataa la idhaa waa intaa lagu diraya waxaa waaye annagoo dalkeena joogno oo dhalinyaro Soomaaliyeed ah oo dalkeena joogno oo annagoo dalkeena joogno dhibaatada jirto dalkeena loo ogyahay horumar ku sameynayno dad haddana xagga joogo oo qurbahaas ku nool oo nabad ku nool oo free ku nool waxay nagula dhaqmayaan waxyaabo ayna u dulqaadan karin fanaaniinta Soomaaliyeed qaarkood inta badan hore ugu soo dulqaateen waxaan idin sheegay aniga qof bini aadan aan ka baqaayo ma jiro ciilka iyo ilantana waxa ay keenayo waxay tahay aniga haddii aan adkaysto oo ninnimadeeda aan ku adkaysto oo wuxuu yahay aad tuso waxaa waaye meel aan ka damqanayo rag ama dhalinyaro ama gabdho iyo dumar iyo xaggooda naga soo maraya iyo meel aanan maxaa la yiraahdaa dad aan hadhoon eed aniga tusan naga koraysa oo dartiina wax walba noo gaaraan leeyahay Soomaali Maxamed aniga waxaan rabaa in ay ogaato dib زائد فنانين Soomaaliyeed aniga u hadlay afka fanaaniintu ku hadlay waliba kuwa dalka ku sugan dhibaato زائد naga heesato xagaan iyo maxaa la yiraahdaa dadkan ku sugan dhankaas iyo maxaa la yiraahdaa qurbaha hadalka aan ku dheeraanaynin Soomaali Maxamed waxa waaye waa ka raali gelinayaa xanaaq iyo hadalka ku hadlay waxa waaye arrinka ina ogaataan arrinkaas meesha uu marayo ninkaana uusan naga daba harin cagta uu noo saaray haddana waxa ka sii ciisoonaya waxay tahay afka uu ku hadlay xaniisa maaha ninnimadiisa maaha raganimadiisa maaha mar walbo aan ninkaas ina ka hortaga aad dabco waxa ay soo hor istaagayo Ahmed Rashid waxa soo hor istaagay Ahmed Rashid ninka noogiilay ninka dhalinyarada Soomaaliyeed waxa ay uga baqaysa ma aqaan dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhan ay ka wada kaadanayso ninkaas oo naga soo maray ninkaas markuu awoodi waayo deeq darajo cilmi kuma dhamo wallaahi oo bilaahi oo talaa xabad cilmi ah oo intaas dhigin isku dhameen awood waxa u yeelan in YouTube-kiisa ahwada ka saarno uu naga soo weerarayo uu awood u yeesay deeq darajo وكذا بتجي وحبوه نقاد بأسيج المها حقه قوته أسيج واحد بسبيه حنيه ما أقول ناس سكوجرا طلع وحقوقي لا أفار قبيل كمرك قف قويل ليس وقبيل كمرك لوجو خلدمه قف قبيل لوجو هنا لكننا أنا قبيل لهن قبيل وحقوقي ركني ما أنا لهن صومال ما أنا كجرين أو واحد أنا ترين أفكاس ومفارقة هايو أو إسكودرا قبيل قوي الناس وحاول وحلو دن قذا قفك قبيل وحكي يقانو قبيل وصوحبك أقولين نرجع وصوحبك أقولين هير وصوحبك أقولين وحاول أن اليرد الصومالية وحبك أقولين نكاسا نوجبي أو اللي يرى أحمد رشيد عنده نوجلي وحاول هذا أمجبين أو معناها إن وحلوينا عن العشرة ما يوتيوب كيجي إن معناها عنده كويستو أما ولل حكم يوتيوب كيجي أنا عنده كويستو حتى تقدر يجادك عندكم هاي أكونت كيجي أنا عنده كويستو يوتيوب كيجي أنا عنده كويستو حب أنا عنده كويستو لكن ولي عجب جوجلين يضط كي تقدر يجي إلا حتى وحاول وكسوت تجنولوجيسي وحي أسعد هرمركيسي ماشي جوجو وكسوت تجي وحاول حياة كاجل أيضا الصدق كله تجمعنا وكسوت تكتي وحاول حمر يكسو انتهي وقصة ضبطه وحاول ضبطه وهذا وخبطه dadku ugu booteenayeen waxay tahay oo dadku uga baqayaan dhalinyaro Soomaaliyeed fanaaniin Soomaaliyeed dad fara badan oo hadda magacyadooda inta ka soo qaadeenin oo hore wax ugu geystay oo fiidiyoyo oo ka saastay inta badan ninkaas dumarku wax ku sameeyaa rag wax kuma sameeyo ragna wax kama yaqaano waxaan aaminsanahay inay waliba rag is arkin haddii rag is arki lahaayeen ama maanta uu Soomaaliya joogi lahaa waxa waay ninnimadiisa la tusi lahaa waxa uu asiga yahay buu arki lahaa Soomaali Maxamed waxa ogaataan
ninkaas inuu dhib nagu haayo dhalinyarada Soomaaliyeed inuu dhib ku haayo ma fahanteen waxa waaye anigu inta hadalkaas wax usoo gudbinayay oo muhiimadu ay tahay waxa waaye oo raaligelinta aan dhaweyta bixiyay ama baryada aan baryahay ma ahan wax aniga asiga ka baqay ama cilmi uu iga badiyay ee deeq daraja baskoolad madax looga haaya xaniyo gurigiisa loogu tagaa ku yaray ma fahanteen si familkiisa loo tagay waa la soo waxay marka aniga awood kale oo ifurneed ma lahan wada kale oo sameeyaa in anigaas tuwaco aan baryo oo video soo duubi dhaho aan video u soo duubo wada ahayn ma lahan markii tii ay dhacday isla subaxii qadara qabsatay oo xabsiga gale oo taasiya ay gashay ninkii ilaa hadda uu dib taagay alaa kula hadalka waxa ku soo xiraaya muhiimadu ay tahay waxay tahay ninkaas asiga ah inuu weli cagto oo noogu saaran yahay oo nadabahaayo waxa waaye anigana ma aan shakhsi u dabahaayo waxa waaye ninka deeq daraja oo dhalinyarada walaalkayga ah iyo waxa waaye bahalkii maxaa la yiraahdaa teeda anoo dhan family waa ka dhalanay qofka familkiisa anoo maxaa dadku isdhaana laga yaabo dadku maxaa la yiraahdaa familiadood ma meesan waxba qaban karin oo ninkaas yaa horta family wax qaban kara family qofka markuu familkiisa loo ogaayo meesha ka soo jeedo ninkan familkiisa lama ogo wuxuu yahay kama soo jeego qabiil qabiilku uu sheegto wuu sheegto aniga hadda qolada raba sheegan kara laakiin dadka aan ka dhashay waan dhex joogaa waa kuwaana ayaa ka dhashay waa sheegay waan ku faana waa ka dhashay Soomaali Maxamed guud ahaan uga dhashay laakiin qaasatan ma jeerteena ka soo jeeda qabiilkan in la isku barto waa muhiim ma aha qabyaaladu qulubta ma ahan ma fahanteen laakiin muhiimadu waxay tahay ninka meel loo raacdo ma lahan oday cista ma lahan nabadoo looga dacwado ma lahan dad loo mara ma lahan wuxuu yahay ma lahan saasay tahay dad ugu sii heelinaya aan qabyaalada iyo Soomaalinimada iyo qabiilkaba waxba ka aqoonin marka wax u sheegaya Soomaali Maxamed arrinka inay saa u ogaato videoga wax igu soo kalifanay arrinkaas ahayd waan in salaamiya kuma sii dheeraan karo waxa waaye hadii hadalka inta ka badan ku sii dheeraadana hadal iga tagayo Soomaali Maxamed salaamu calaykum waan in salaamaya goodbye